xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay waxyaabihii ka qabsoomay go'aamadii lagu sugayay amniga caasimadda dalka. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha oo la hadlayay TV-ga qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan dhaqangalka go'aanadaas. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ku booriyay shacabka Soomaaliyeed inay hay'adaha amniga kala shaqeeyaan sugidda amniga caasimadda. Waa la socotaan 12 May go'aano waxaa jira golaha wasiirada ka soo baxay oo lagu dardargelinayo xasilinta iyo soo celinta amniga dalka gaar ahaan caasimadda Muqdisho. go'aamadii la gaaray 12 hay'adihii amniga waa ay ka howlgaleen. haddana waxaan jeclaan lahaa inaan shacabka u soo gudbinno in ay hay'aduhu amnigu diyaar yihiin howlgalkaasna u dhaqan geli doono. sidaas daraaddeed waxaa muhiim ah shacabka Soomaaliyeed oo runtii aad dowladdan u taageeray, aad u jecel dowladnimada iyo wanaagga, in ay kala shaqeeyaan hay'adaha amniga. hay'adaha ilaa hadda waxaa u suuragalay in la xareeyay ciidamadii isku dhafka ahaa ee loo diyaariyey inay sugaan caasimadda Muqdisho oo isugu jira ciidamada booliiska, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa nabad sugidda. sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ayaa isagana wuxuu dhisay golaha ammaanka ee gobolka Banaadir oo runtii isagana dhammaan degmooyinka iyo hay'adaha amnigu ay aad uga wada shaqeyn doonaan arrintaas iyada ah, tan oo xoojin doonta in howlgalku noqdo mid miro dhal ah. sidoo kale waxaa la bilaabay in si loo sugo amnigaas wadada Maka Mukarrama gawaaridii la dhigan jiray laga joojiyey oo ciidanka traafikada iyo ciidanka muxuu ahaa booliiska iyo gobolkana ay aad arrintaas uga howlan yihiin. sidoo kale ciidanku waxay diyaariyeen qorshihii ay ku howlgeli lahaayeen si caasimadda looga mamnuuco ciidamada hubeysan iyo gaadiidka socda marka laga reebo kuwa haysta warqadda fasaxa iyo kuwa howlgallada sameynaya naftirkoodii inta kale iyagana in laga mamnuucayo. waxaa kaloo iyadana la bilaabaya qorshihii ahaa in dadka ku wata hubabka magaalada mas-uuliyiinta ay ku jiraan in sidii lagu ballamay 4 askari ugu badnaan iyo qoriga AK-47 wax ka badan inaan magaalada lagu wadan doonin. iyadana hawsheedii waa la hirgeliyey, dhaqangelidii ayaa bilaabanayso. sidoo kale ciidanka booliiska waxay diyaariyeen ciidan u gaara ee ilaaliya mas-uuliyiinta iyo goobaha dowladda, kuwaasoo ayagana dhowaan dhaqangeli doona. waxaa kaloo iyadana aad lagu faray in goobaha ganacsiga ay ka qayb qaataan sugidda amniga, oo goob walba oo ganacsi ciidankooda ilaalada gaarka ah inaysan noqon waxay ilaalinayaan goobta keliya, goobta iyo meelaha dariska la ah, ama ha noqoto hoteelada ama ha noqoto haddii meelahaas fal ka dhacaan waxaa imaan doonto in lagula xisaabtamo ciidankaas gaarka ah ee ilaaliya goobahaas kaalinta ay ka qaateen inay amnigaas sugaan ama falalkaas dhacay ka hortagaan. iyadana waxaa socoto muxuu sidii loo wada howlgelin lahaa. waxaa kaloo iyadana muxuu ahaa ciidan walba kaalinta ay ku leeyihiin inay ka qayb qaataan oo dhowaanna la filayo in muxuu ahaa bilaaban doonto wacyigelintii oo gobolka Banaadir iyo wasaaradda warfaafinta oo iskaashanayana in bulshada loo sameyn doono barnaamijyo wacyigelin oo runtii amniga xoojiya. sidoo kale iyadana waxaa la diyaariyey in dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan caasimaddu inaan loo ogolaan doonin inay iyagoo labisan ay maraan iyagoon haysanin warqado fasax ah iyo caddaynaya inay howlgal ku jiraan. marka arrimahaas oo dhan waa arrimo aan aad iyo aad ugu celcelinayno shacabka Soomaaliyeed, dowladduna ay ka codsanayso inay kala shaqeyso arrimahaas. sidoo kale dhammaan go'aamada waxay noqon doonaan kuwa waafaqsan dastuurka, kuwa shareecada islaamka iyo shuruucda dalka u degsan. waxaa bilaabatay isla xisaabtan iyo in muxuu ahaa amniga uu noo yahay mid annaga dan noo ah inaan ka wada shaqeyno dan ku jirto. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.